إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وتقبل سنين إن تضوض وحيالات لغوها لأكسمه إن المدمد أدول استاغو ما انتي هدو إلهي قدره وحربا إن دول استاغو شركيو محاد إهيت shirkiga waa laba qeybood laba qeyb waaye shirkiga shirkul asghar iyo shirkul akbar shirkul asghar iyo shirkul akbar haddaan ku bilaawo shirkul akbarka waa shirkul akbarka yakhruju min almilla ninka sameeya shirkul akbarka qofkaasi wuxuu ka baxaa diinta islaamka ayuu ka baxayaa ninkaasi shirkul akbarka sameeya saaxibkiisana ninka shirkiga akbarka sameeyeyna waa mukhalladun fi nnaar mid ku waaraya naarta cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa qof kale loo leexiyo alcibaadatu ligayri اllah kaadducaa waaldabx waاnnadr inaan wax markay la qalayo ilaahay keyrkiisa loo qalo shayaadiin loo qalo jin wax loo qalo qubuurta wax loo qalo iyo nadir la galo ilaahay keyrkiisa lagu nadro ilaahay keyrkiisa lagu nadro ayaa wuxuu keenaa shirkul akbar qofkaasina qofka jinka wax u qala shayaadiinta wax u qala aaminsan in wax la siiyo aaminsan oo u shariig yeela say qofkan ay dhaafaan darteeda ay u dhaafaan darteeda xoola u qala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala keyrkiisa wax u qala mukhalladun fi nnaari waa mid ku waara naarta ama hadduu sanam u qalo ama hadduu waxyaalaha ay caabudayaan ilaahay keyrkiisa u qalo ama ducadii ilaahay lahaa uu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala udcuunii astajib lakum ani ibarya anaa idinka ajiibaye ducadii ilaahay uu lahaa inuu siyo ilaahay keyrkiisa inuu siyo aw sheekh fulaan aw kida ducadii inuu siiyo waxaydan aysan awoodin aysan wax u tari karin ay haddana ay weydiiyaan waxay keenaysaa shirkul akbar ayay keenaysaa marka saaxibu shirkul akbar mukhalladun fi nnaari waa mid ku waara naarta tii ilaahay tilmaamay wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله marka أحبابي في الله شirك الأكبر saaxiibkiisa wuxuu ku waaraa naarta ayuu ku waaraa shirك الأكبر saaxiibkiisa kama baxo naarta ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu yidhi إن allaha laa يغفir an yushraka bih ويغفir ma duna ذalik ilaahay uma dembi dhaafo ruux wax u shariig yeela ilaahay uma dembi dhaafo ilaahay wixii ka soo haro aan shirki ahayn ilaahay wuu dhaafaa subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muxamed calayhi الsalaatu wassalaam ayuu ilaahay wuxuu ku yidhi walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin nebi muxamedow waxaan u waxyoonay adiga iyo nebiyadii adiga kaa horeeyey ayaan waxaan u waxyooday aanu ku nidhi haddaad wax u shariig yeeshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ilaahay wax u shariig yeeshaan layaxbaطanna camaluk waxaa buraya camalkiin oo dhan waxaadna ka mid noqon doontaan kuwa khasaaray marka walaalayaal shirkiga aad ayuu dhib badan yahay nebigana wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah umirtu waxaa lii amray an uqaatila annaas inaan dadka la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka dhahaan laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah ilaa xaqnimo lagu caabudo dhulka ma jiro ilaa ilaah keli mooye ilaa ay ka qiraan faidaa qaaluuhaa hadday sidaas yidhaahdaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha waxaa aniga xaaraam iga naqanaya
dhiigooda inaan daadiyo xoolahooda inaan qaato ilaa wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala xaq ku yeeshatay kelimadaasi tawxiidka mooye. markaasuu nabiga xadiid kale wuxuu yidhi alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir, wad hooyaaye miyaan idin sheegaynin dunuubta kan ugu weyn miyaan idin sheegaynin? qulnaa balaa yaa rasuula allah. saxaabadu waxay leeyihiin haa oo nacam yaa rasuul allah, rasuulkii allow noo sheeg. markaasuu nebigu wuxuu yidhi alshraaku biاllaah, ilaahay oo loo shariik yeelo, ilaahay oo cibaadadiisa qof loo leexiyo, ilaahay cibaadadiisa oo qof kale loo leexiyo ayaa waxay ka mid tahay akbaru اlkabaa'ir iyo wa cuquuqu اlwaalidayn, labada waalidoo lagu caasigaroobo lagu caasiyo ayay waxay tahay akbaru اlkabaa'ir, dunuubta kuwa ugu waaweyn ayay waxay tahay ilaahay loo shariik yeelo, labada waalid oo lagu caasiyo. shirkiga labaadna waa shirku اlasqar. shirku lasqarkana waa alri'aa, istustus, inuu qofkii dadka istutusiya salaadiisa oo kale, soomkiisa oo kale, xajkiisa oo kale, sadaqadiisa oo kale, laakiin saaxiibkiisa kama baxo diinta islaamka, laakiin wuxuu ku xambaaraa ama wuxuu ku sababaa inuu ku geeyo shirkul akbarka inuu geeyo ayuu sababaa, laakiin saaxiibkiisa kama baxo shirkul asqarka, saaxiibkiisa millada islaamka ee kama baxo. sida ninka shirkul asqarka sameeya waxaa ka mid ah inuu qofkii ku dhaarto ilaahay keyrkiisa subxaanahu wa tacaala, waa shirku اlasqar. nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi akhwafu waxaan idinka baqayaa shirku akbarka ma ahane, laakiin waxaan idinka baqayaa wuxuu yahay shirku اlasqar ayaa idinka baqayaa. markaasay saxaabadu waxay yidhahdeen wama shirku asqar, shirki asqarka muxuu yahay rasuulkii allow? markaasuu nabigu yidhi alri'aa, waa nabigu uu sal slam istutuska, qofka inuu raadiyo sumcad, magac iyo in la arko, martabadiisa la arko. war ninkan waa nin cibaado badan, waa nin soon badan, waa nin sadaqo badan, waa nin ikhlaas badan, inay dadka ammaanaan basuu iska rabaa, bas wax kale ma rabo, ammaantaasuu raadiyaa. waalciyaadu biاllah, ilaahayna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. qofkii rajaynaya la kulanka ilaahi subxaanahu wa tacaala, war ha camal falo camal wanaagsan, yuusan cibaadada ilaahi subxaanahu wa taala wax u shariig yeelin cibaadada rabbigiisa subxaanahu wa tacaala. dadka adna istutusiso adoo waxaa lagu yidhahda in lagu ammaano, inay dadka ku ammaanaan lianna bani aadamka sidoodaba dabeecadooda afkay maanta kugu ammaanaan ayay beritooda haddana kugu caayaan, laakiin allah subxaanahu wa tacaala inaad ammaan ka raadsato, sumcad ka raadsatid ilaahi subxaanahu wa tacaala, inuu cibaadada ilaahi subxaanahu wa taala kaa aqbalo. marka shirkiga waa nawcaan, shirku اlakbar wa shirku اlasqar. shirkiga akbarka waa midka looga baxo diinta islaamka, inaad cibaadadii ilaahay lahaa aad dad kale siiso, ducadii sida ducada oo kale, salaada oo kale, soomkii oo kale, xajkii oo kale, inaad ilaahay subxaanahu wa taala keyrkiisa siiso. ama dhanka wax qalidda, haddaad xoolo qalaysid aadan ilaahay magaciisa ku qalin ayay waxay ka mid tahay shirku اlakbar. wa ama shirku اlasqarna waa istutuska, inaad dadka istutusisid, inaad dadka ismamuujisid, inaad soodkaaga haddaad qaari tahay in codkaaga lama maqlo, meelaha qur-aanka aad ku akhrisid, qor a u qaaqaadid say dadka ku ammaanaan darteeda. marka in sha allahu tacaala shirku اlasqarkana waa midkaasi. ilaahay subxaanahu wa tacaala hana xifdiyo, cibaadadeena aan fiirino, ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqa saxda ah ilaahay hanugu hanuuniyo. wixii aan gafay meeshaasaan kusoo gaabsanaa kelimadeyda, wixii aan gafay famin nafsii washayطaan, waxayna asiibay ilaahay subxaanahu wa tacaala haggiisayna ka ahaatay. hada wbiاllahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatuh.